runtii aniga wax badan waan fikiri jiray waxaan ku fikiri jiray qaabka waddankayga horumar uu ku gaari karo waxaan isweydiiyey guulaha faraha badan sidee ku imaan karaan guuldaradana sidee looga badbaadi karaa markaas kadib qorshe wanaagsan ayaa aniga maskaxdayda ku soo dhacay qorshahaasna wax kala ma aha waxaan ku fikiray in aan abuuro geedkaas subax walba imaan jiray biyo ayaan ku shubi jiray 3 maalin kadib waan fiiriyay ma soo bixin haddana biyo ayaan ku shubay maalinta kale isbuuc kadib waan umada ma soo bixin haddana waxaan ku shubay biyo bil kadib ayaan u imaaday ma soo bixin haddana waan waraabiyey sanad kadib ayaan u imaaday geedkii weli ma uusan soo bixin laakiin 3 sano kadib geedkii hal mar ayuu soo baxay taasoo aan ula jeeda micnaheeda dad waxaa jiraan horumar jecel in ay sameeyaan kadibna ay hal mar cirka wada galaan suurtagal midaas ma noqon karta sababtoo ah geedkaas ayaaba tusaale u ah marka hore hoos ayaa laga soo bilaabaa kadib ayaa kor la imaanaya qofka bini'aadamka waa uu dadaali karaa soomaalidana waxay dhahdaan dadaala waa uu gaaraa aniga maanta waxaan idinku tilmaami karaa dad waqti walba aniga garabkayga taagan ila dadaalayo waxa aan samaynayna ku faraxsan qof walba dadaalayna aniga garab ayaan siinayaa mahadsanidin